وعنا wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Wardhowr Media qodobka waxaan ku soo qaadanaynaa Israaiil oo adeegsanaysa hay'ado sirdoon oo laga leeyahay Israaiil iyo boqortooyada Sucuudiga Carabiga si ay u hesho xoga ay ka doonayso gudaha dalka Turkiga shabakado sirdoon ay abuureen wadamada Israaiil Sucuudiga iyo Imaaraad ayaa howlgallo qarsoodi ah ka fuliyay dalka Turkiga iyagoo adeegsanaya saxafiyiin hoosta sirdoonka ah kuna joogay dalkaasi inay wariyaal yihiin Daily Sabah oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa qortay in howlgallo sirdoon oo qarsoodi ah ay Israaiil ka waday Turkiga iyo bariga dhexe waxaana fulinayay saxafiyiin adeegsanaya warbaahinta iyadoo ay iska kaashanayeen Israaiil, Imaaraad, Sucuudiga, Masar iyo waliba kooxda terror group. Warbixintan ayaa lagu sheegay in bartilmaameedka howlgalku uu ahaa Turkiga iyo waliba hay'adooda sirdoonka qaranka ee MIT 18 Maarsna waxaa la helay warbixin sirdoon oo howlgalladaasi qayb ka ah laguna daabacay bog ay Israaiil leedahay waxa ciwaan looga dhigay muujinta sawirka argagixisada iyo sirdoonka Iiraan ee dalka Turkiga sawirka la soo saaray maqaalkan wuxuu muujinayaa dhulka Turkiga in ka badan kala bar oo calanka Iiraan lagu daday warbixino sirdoon oo badan ayaa xaqiijinaya in Fito ay hubisay shirkadeeda sirdoonka ee Israaiil iyada oo loo marayo qurbaha Yahuuda oo loola jeedo Mareykanka iyo wargeyska Haaretz oo ah wargeys laga leeyahay Israaiil laguna daabaco arrimaha buunbuuninta siyaasada Israaiil iyo nacaybka wadamada ay siyaasad ahaan ishayaan si aan qarsoodi lahayn ayaa loo daabacay maqaal ku saabsan goobaha madow ee dalka Turkiga waxaana maqaalkan lagu turjumay luqadaha English iyo Jarmalka taariikhdu markay ahayd 11 December 2018 maqaalkan ayaa lagu daabacay wargeyska Fito ee xaruntiisu tahay Jarmalka waxa mar walba lagu daabacaa ayaa qormada lagu leeyahay war aan sal iyo raatoona lahayn qaar kamida qoraalada lagu daabacay wargeyskaasi ayaa ciwaan looga dhigay Suldaan aan Suleymaani oo loola jeedo madaxa sirdoonka Turkiga iyo Qaasim Suleymaanigi Iiraan oo dhawaan lagu dilay dalka Ciraaq wargeyska ayaa waxa uu leeyahay Suleymaani waa tagay ee waxa muuqata in la doonayo in la dilo madaxa sirdoonka Turkiga iyo waliba in dilkiisa Suleymaani ay Israaiil ka dambeysay laakiin ciidamada Mareykanku ay fuliyeen dawladda Turkiga ayaa sameysay isku day ay ku doonayso inay ku soo xirxirto diblomaasiyiin, siyaasiyiin, saxafiyiin iyo ganacsato looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen hawlahan ay Israaiil ku doonaysay inay wax badan kaga fuliso gudaha dalka Turkiga laakiin aan wali u suurtagelin waxaa la ogsoon yahay in Israaiil ay fuliso hawlaheeda basaasnimo ee sanadlaha ah iyadoo isticmaalaysa xeelado adag oo aan la garan karin isla markaana aan ilaalinayn xeerarka iyo qawaaniinta sirdoonkeeda Israaiil muddada ay hawlahani ku jiraan waxay adeegsadaan helidda xogta oo abaarto goobaha lagu xiriiro sida WhatsApp-ka iyo wax walba oo internet ku shaqeeya oo ay si fudud u jabsan karaan una heli karaan xogta ay u baahan yihiin qormadan oo aad u dheereed waxa lagu muujiyay in dawladda Turkiga ay si laba jibaartay hawlaheeda sirdoonka ee gudaha iyo waliba dibadda si looga hortago isku dayada fashilmay ee Israaiil intaas ayaan ku soo koobaynaa qormadan oo aad u dheereed laguna daabacay Daily Sabah hadda tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe saar haddii aad hore noola joogteen gambaleelka taabo si warbixinadeenu ay kugu soo dhacaan